السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا غياري ميل كستاد joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha halaba maalin kastaad kala socotaan barteena youtube-ki ciyaaraha latestub kusoo dhawaada muuqaalkan cusub maanta ku eegi doono wararka ugu dambe ciyaaraha siiba waxaanu diradda saari doonaa canta suuqa kala iibsiga ciyaaraha ayaanu eegi doonaa dabcan waxaan soo kaleete eegi doonaa wararka ugu dambe ciyaaraha siiba wargeysyada caalamka siiba kuwa ka falado ciyaaraha waxa ay ka qoreen ayaanu eegi doonaa iyo waliba waxaan soo kaleete falqayn ku samayn doonaa Arsenal oo la kulantay gooldaradii ugu horeysay ee ciyaareedkan ciyaaraha pre-seasonka haddaan nagu cusub tahay subscribe mosar haddaan naga mitana like ugu diragale haddaan ku bilaawno wararkeena ciyaaraha maanta ciyaaryahan Jadon Sancho ayaa tijaabada caafimaadka ee shalayto u maray naadiga Manchester United lagu guuleystay iminka waxaa dhiman oo kaliya in ciyaaryahan Jadon Sancho si toos ah loo shaaciyo inuu ka mid yahay ciyaaryahan ka tirsan naadiga Manchester United ciyaaryahan Jadon Sancho ayaa ka mid ah geesiyaashii matashay xulka qaranka Ingiriiska gaarsiisay ilaa iyo finalka Euro 2020 waana ciyaaryahan hore ee naadiga Borussia Dortmund ee ka dhisan dalka Jarmalka ciyaaryahan Jadon Sancho ayaa intuu joogay naadiga Borussia Dortmund waxa uu u ciyaaray 148 kulan waxaana uu u dhaliyay 51 gool soo kaleetana wuxuu uga caawiyay ka in ka badan 30 gool iminka waa ciyaaryahan ka tirsan naadiga Manchester United ay ku soo qaateen adduun dhan 80 milyan ciyaaryahan Marcus Rashford ayaa ciyaaryahan ka tirsan naadiga Manchester United kana mid ah ciyaartoydii matashay xulka qaranka Ingiriiska Euro 2020 Rashford ayaa moodaa iminka in qaab ciyaareedkiisa uu yahay mid aad u liito aan sidii hore lagu baran u ciyaarin taasina ayaa waxa la sheegay waxa uu sababa dhaawaca heesto ciyaaryahan Marcus Rashford dhaawaca ayaa wuxuu ka heystaa dhanka gorbaha iminka ciyaaryahan Rashford wuxuu go'aansaday in qaliin lagu sameeyo ciyaaryahan Rashford ayaa iminka go'aansaday in qaliinka lagu sameeyo marba hadduu soo dhamaaday tartanka Euro 2020 waxa soo kaleeto uu sheegay in ciyaareedkii la soo dhaafay inta badan uu dareemayo xanuun dhanka garbaha kaasaad moodaa in qaab ciyaareedkiisa ay tahay mid aad u liita aysan ahayn sida looga bartay iminka waxaa la filayaa in qaliin lagu sameeyo maalmaha soo aadan laacibka naadiga Borussia Dortmund Haaland ayaa moodaa in aad looga doonaya caga iyo horyaalka Premier League waxaana ciyaaryahankani u dhashay dalka Norway doonaya dhowr kooxood ay ka mid yihiin naadiga Chelsea aad moodaa inay si wali oo doonayaan naadiga Manchester United Manchester City iyo waliba naadiga weyn ee dalka Isbaanishka ee Real Madrid ciyaaryahankan ayaa qiimaha rasmiga ka jooga suuqa uu yahay 65 milyan hase haatee doonista ay doonayaan dhowr kooxood oo weyn ayaad moodaa in qiimihiisa ay aad u kiciyeen naadiga Borussia Dortmund kaas ay ka dhigeen ilaa iyo 150 milyan wow runtii waa lacagaan caadiheen Borussia Dortmund haddii ay ciyaaryahan Haaland ku helaan qiimahaas ayaad moodaa inay ku soo qaadan doonaan dhowr ciyaaryahan oo muhiima dhanka leh haddii aan soo kaleeto eegno tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City Pep Guardiola ayaa soo kaleeto doonaya inuu keeno ciyaaryahan Haaland kooxda kubadda cagta ee Manchester City hase haatee ilaa iminka lama ogo halka uu aadi doono ciyaaryahan Haaland laacibka naadiga Chelsea Alonso moodaa in laga gacan haatinayo caga iyo Serie A Talyaaniga siba waxa doonayso naadiga Inter Milan ciyaaryahan Alonso ayaa dhalashaan ka soo jeedo dalka Isbaanishka wuxuuna ka mid yahay ciyaartoydii geesiyaashii ku guuleysteen Champions League cagaagii la soo dhaafay ee naadiga Chelsea iminka kooxda kubadda cagta ee Inter ayaa waxay doonayaan in ciyaaryahan Alonso ay soo qaataan ilaa iminka lama hayo warar rasmi ku saabsan doonista Inter dhan kale haddii aanu eegno kulanka calayta ay ciyaareen naadiga Arsenal kulanka ugu horeeyo ee diyaargarowga kooxaha ayaad moodeen calayto laga badiyay naadiga Arsenal waxaana ka badisay kooxda kubadda cagta Hibernian ee ka dhisan dalka Scotland qaybtii hore aad moodaa in Hibernian ay la hormarshay 2 gool qaybtii labaad markii la ku soo laabtay ayaad moodaa Arsenal inay dadaaleen
hase haatee waxaa goolkulaad ka khasaariyay naadiga Arsenal ciyaaryahan Pepe waxaana goolka kaliya kooxda Arsenal u dhaliyay ciyaaryahan Rose ayayna Arsenal laga badiyay 2-1. dhan kale ugu dambeyntii waxaanu eegi doonaa ciyaaryahan Rashford ayaa ka mid ah ciyaartoydii ka khasaarisay goolkulaadka xulka qaranka Ingiriiska waxaana ka mid ah ciyaaryahan Sancho iyo Lusakia. ciyaartaasi aad moodaa inay ka dhasheen cunshuriyad aad moodaa inta badan ay ku kaceen taageerayaasha xulka qaranka Ingiriiska siba barta rasmiga Rashford ee waxa lagu soo qoray hadallo nacayb ah kaas aad moodaa in inta badan lagu bartilmaameedsanayo ciyaaryahan Rashford. booliska dalka Ingiriiska ayaa waxay sheegeen inay gacanta ku soo dhigeen nin 50 jir ah oo inta badan lagu eedeynaya in qoraalkaasi uu ka dambeeyay waxaana diideen inay magaciisa ay sheegaan booliska dalka Ingiriiska balse waxay sheegeen in baaritaan uu ku socdo ninkaasi maxkamadda la soo saari doono. Sportiga waa naga taagay.